salaada ka tegitaankeeda acmaasha islaamka marka bacda tawxiid waajibaadka kale oo dhan gaalnimo laguma mutaysto bay yidhaahdaan culimmada islaamku haddaanu qofku dafirsanayn laakiin salaada waxaa culimmadu qayb ka mida ay qabaan tarku salaat waa kufr waxaan jeclahay in yaroo kooban inaan idin xasuusiyo micraajkii ilaahay uu qaaday nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ee beytulmuqadas uu geeyey ee ilaa iyo samaawaadka ilaahay uu ku casuumay ee carshiga hoostiisa la joojiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo xikmadihii ku jiray iyo fawaa'iddii ku jirtay wax yar inaynu isxasuusinno ayaan insha allahu tacaala u baxayaa wakhtigan xaaliga ah nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la dheelmiyey oo samaawaadka la geeyey xilliyadii ay ugu adkayd nolosha saxaabadu ee asxaabtiisa la garaacayey ee haddii alla yidhaahdo la xidhayey ee la rafaadinayey waxay ahayd sanadkii nebigeennu uu waayey labadii garab ee difaaca u ahaa sayidina khadiija radia allahu tacaala canha wa ardaaha iyo adeerkii abu daalib markii ay wafaadeen oo sanadkii la odhan jiray caamulxusni wakhtigaas ayaa ilaahay wuxuu hadiyad iyo kabis uga dhigay inuu rabbigeen siiyo nebiga calayhi salaatu wasalaam wax u buuxiyo booskii iyo kana qaalisan waxaa nebiga calayhi salaatu wasalaam loo hibeeyey oo la siiyey salaadaha shanta ah ee aynu tukanno ilaahayna wuxuu ina dareensiiyey salaadahaasu macnaha iyo xigmadda ku jirta inay tahay in nolosha dhibaabaheeda iyo culayskeeda inuu ilaahay inagaga fududaynayo waxaanu ina faray subxaanahu qur'aankiisa kariimka ah wuxuu yidhi wastaciinuu biالsabri waالsalaaة noloshu waa cidhiidhi oo adduunyadani way dhib badan tahay oo raaxo iyo nasiino ma lahan ee hadday xaaladaha adduunyadu kugu adkaadaan waxaad gargaarsataa salaada iyo sabirka gargaarsada salaada caynkaasa ee qofka bini aadmiga ee muslimka ah markay xaaladuhu ku soo ururaan oo ku soo joogsadaan ilaahay subxaanahu watacaala farajka uu ku siiyo salaadihii waajibka ahaa ayaa ilaahay u soo dhiibay mucjisooyin badanna wuu la kulmay safarkaa uu nebigeennu galay habeenkaa mucjisooyin aada u fara badan oo aynaan ka gaadhsiin karayn ayuu ilaahay siiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa muhim ah oo gundhig ah salaada iyo qiimaheeda ayaa aada iyo aada u qiimo badan sababta oo ah dhammaan waajibaadada ilaahay inaga rabo oo inagu waajibiyey arladan isagoo nebigu joogo ayaa loo soo dejiyey hadday soon tahay hadday saka tahay hadday xaj tahay hadday jihaad tahay hadday akhlaaqiyaadka iyo tarbiyadii diinta hadday tahay dhammaan dhulka isagoo jooga ayaa nebiga lagu soo waajibiyey laakiin asalaa waxaa nebiga loo dhiibay fowqa 7 samaawaat meel aan isaga mooyaane makhluuq kala gaadhin ayaa nebiga la geeyey sayidina jibriil calayhi salaam ayaa la socday nebiga markii samada marba samo la dhaafinayey geedka la yidhaahdo sidratulmuntaha markay marayaan nebiga iyo saaxiibkii jibriil ayuu jibriil yidhi anuu halkanaan ku hadhayaa halkaa anuu ma dhaafi karayo jalaalka ilaahay ma qaadi karayo markaasuu nebigu yidhi halkanu meeshii saaxiibkiisa kaga hadhi jiray ma aha waa dhul qariiba oo aana waxba ka garanayn ilaahay baa ku wadaya dhaqaaq baa lagu yidhi wuu dhaafay nebigu calayhi salaatu wasalaam sidrat almuntaha meel ilaahay uu og yahay baa la gaadhsiiyey halkaasaa markaa salaadaha ilaahay uu ku soo waajib yeelay nebigeenna calayhi salaatu wasalaam isagoo hadiyaddaa qaaliga ah wada ayuu arlada yimi nebigu calayhi salaatu wasalaam markii uu wafaadayeyna shayga uu inagula dardaarmay 2 shay bay ahayn asalaa wamaa malakat aymaanukum asalaa wamaa malakat aymaanukum salaada ka tegitaankeeda acmaasha islaamka marka bacda tawxiid waajibaadka kale oo dhan
gaalnimo laguma mutaysto bay yidhaahdaan culimmada islaamku haddaanu qofku dafirsanayn laakiin salaada waxaa culimmadu qayb ka mida ay qabaan tarku salaat waa kufr alkufr iyo ruuxa waxaa u dhaxeeya waa tarku salaa markaa salaada iyada heer baa la gaarsiiyey qofku inuu diinta kaga baxayo hadday hal salaadii ka tagto oo weliba isagoo kari kara hadday hal salaadii ka tagto culimo badan baa waxay ku tageen inuu gaal yahay marka inaad murankaaba isgeliso waa laga fiican yahay waana dardaarankii ugu dambeeyey nebiga calayhi salaatu wassalaam aan ka faa'iidaysanno salaada iyo wakhtigeeda asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu